في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا، كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا، لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا، لذنا به فتفتحت أذهاننا، يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب، ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا، أزف الفراق وظلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن أو ونكسن داوديال إذا لهانتي الدنيا ميل بواد كجوكتان كنا سو دوادا برنامجكي سعودالka golay oo toddobaad walba idin kaga imaada TV-ga caalamiga Soomaaliya. barnaamijkan aalaab waxa idin la socodsiiyay anigoo Cabdifataax Xuseen Gole. barnaamijka toddobaadkan waxa marti ugu ah wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Nuur oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda. Xasan Nuur waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dhuljeexday Saharaha dheer ee u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya, asigoo gaaray ugu dambeyn dalka Liibiya in muddaan halkaas uu ku xirnaa, kadibna uu dib ugu soo noqday magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda oo hadda halkaas uu ka shaqeysto. ugu horreyn waan kugu soo dhaweynayaa Xasan Nuur barnaamijkayga socdaalka golay iyo sida aad u aragto. bismillaahir rahmaanir rahiim. Horta socdaalka golay baran aadan kaga mahadcelinayaa, ayadoo aad muhiim u tahay inaad Afrika soo gaarto. muddo badan la raadinayay dad badan oo socdaalkaada oo kale ku raadiyo Afrika inay ku yimaadeen. waana ku mahadsan tahay barnaamijkaada sharafta leh. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xasan. runtii waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u tahriibtay dalka Liibiya. runtii waxaad martay dalal fara badan oo ay ka mid tahay dalka Suudaan. waxaa laga yaabaa inaad la soo kulantay dhibaatooyin fara badan hadday ahaanayd xarig ama dhac. ugu horreyn safarkaaga ku aadanaa tegitaanka dalka Suudaan siduu ahaa, maxaase kugu dhaliyay inaad tahriibto? wallahi safarkii ugu horreeyay horta xilli hore ahay, ana baxay 2008 waxaana igu kalifay darafo badan awgeed. sidaas darteed dhalinyaro badan oo saxaabtayda ah ama aan jeclahay
badan meesha ku safartay saas darteed anina waxaan damcay inaan yacni dhankayga ka safro. waan gartay markii aad go'aansatay in aad u tahriibto dalalkaasi Yurub si aad u hesho nolol ka duwantii aad kala kulantay qaaraddan Afrika markii aad gaartay dalka Suudaan ugu horeen safarkaagii ku aadanaa tegitaanka Suudaan sidoo ahaa والله يرضى الحمد لله سفرkii aan maray inkastoo safarada ay adkaayeen oo dad badan ay ku rafaadeen dad badan oo Ilaahay u fududeeyay alxamdulillah Ilaahay wax dhibaato ay galama kulmin safarkii aan kala aniga markii aan u socdaalay Suudaan dadka muddo badan ay ku jiri jireen wadada marna way soo laaban jireen marna xabsi ay geli jireen laakiin alxamdulillah Ilaahay waxa soo dhanay markaasi intaas oo qora waxaan ku maray 7 maalin oo Ilaahay uu fududeeyay waan gartay todobada maalmood waxaad ula jeedaa miyaa safarkaaga marka laga bilaabo dalkan Uganda ilaa iyo Suudaan ayaad u socotay 7 cisho waa sidaas todobadaas cisho maxaad saarnad diyaaradaad ku baxday mise waxaad raacday gaari mise lug ayaad ku martay wallahi diyaarad yani dukumiintaan ku raacmaan haysan meeshaan xaaladeeda iska agteed oo lagu maray xadka yani dhibaatadiisa iska badnaay marka dhuumashalaan ba ku galnaba yani nagula gashay Falastiin geliyeen oo Kampala naga wadeen saas darteed wax oo diyaarad habeeraatay aan ku baxnay ma jiraan dadkan ku baxnay yani gaari aan ku baxnay intii aad marayseen wadada xadka u dhaxeeya dalkan Uganda iyo Suudaan mala kulanteen wax jirdil ah ama xarig ah maya inta wala ma kulmin inkastoo dad badan ay la kulmi jireen dad badan la soo celiyay dad badan meesha lagu xiray alxamdulillah wax dhibaato kala ma kulmin waan gartay markii aad tagtay dalka Suudaan yaa halkaas kugu sugayay oo halkaas kugu soo dhaweeyay markii aad halkaas tagtay kugu soo dhashtay qorshe ah in aad safarkaaga tahriibka aad joojiso oo aad ka mid noqoto ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaas Suudaan laguma soo dhalin inaan qorsheyga joojiyo safarkayga ayaaba ahayba inaan yacni qorsheyga aan ka miro dhaliyo saas darteed dad badan oo igu soo dhaweeyay oo asxaabtayda ah ayaa jiro oo jaamacad meesha ka dhiganayay siba jaamacadda Afriqiya rag kale oo ayakana meesha jooga jiro oo muqallasiin ahay oo ayakana isgaranaynay raggaasana meesha ugu soo dhaweeyay aniga ugu horeeyay meesha waan gartay markii aad tagtay magaalada Khartoum xarunta dalkaasi Suudaan oo aad go'aansatay kadib inaad u sii hayaanto dalka Liibiya waxaa la marayaa safar aad u dheer oo u dhaxeeya nolol iyo geeri waxaa la marayaa saxaro aan kaaga horeyn baad iyo biyo saxaro aan dad ehelay waxba aan kaaga horeyn naftaada ee halis ay u tahay haddii aadan gaajo u dhimana sida wararka qaar ay sheegaan halka ay ku jiraan dad tuuga safarkaaga waxaad inooga sheekaysaa ku aadanaa Suudaan ilaa Liibiya imsa Soomaali ayaad aheedeen meeqa qofood ay idinka geeriyootay intaad ku guda jirteen safarkiina ku aadanaa tegitaanka dalka Liibiya waan maasanta gulay ana kaaga mahadcelinayaa fikradaada aad u wanaagsan taasna muhiim ayay ii tahay inaan mar badan aan hamiyey inaan ka hadlo barnaamijkaas oo muddo aan raadinayo saas darteed safarkii ugu dhibka badnaay oo aan maro safarkaas ayuu ahay haddii aan wax kaga taabto marka markii ugu horreeyay oo aan safrayna waxaan ku baxnay gaari weyn ayadoo nagula ballamiyey in gaari yar aan ku baxno saxaraha aan ku baxno marka markii ugu horreey khiyaanada halkaasina waa bilaawday gaarigii weyn markii nagula qaaday adiga muddo 2 maalin aan sii soconay waxaana la geeyey meel yacni adiga doox weyn oo biyo mareen ah agteedana la geeyey oo saxarahan intaan toos loo gelinaa saas darteed meeshii horta caqabad weyn aan kala kulannay oo hadda waxaan ugu lahaayay muddo ku dhow 5 maalin muddadaas nugu lahaayay wax allaala wixii aan saataysanay horta meeshaan ku dhamay wax allaala wixii qarash nagala qaadan jira nagala qaadan kara markaas oo yacni shifto أنا ودانا كمية نحن بشيء بدنا قاعدة كتير مركز ونيا قاعدة waan gartay intii aadan hadalka sii dhamaystirin
waxaan rabay inaan kaa dhex galo tuugada idin gashay waddada waxay ahaayeen dad Suudaan ah mise waxay ka soo jeedeen dalkaasi Liibiya muddo intee leeg ayay idin haysteen tuugadaas hadda waxay ahaayeen dadkaas dad muwaadiniin oo Suudaaniis ay ahaayeen oo waddanka u dhashay oo meeshaba degan oo deegaanku ah kulley area-da ma kala garanaynin saas darteed ma haynin Liibiyaan mana noo dhaweynba Liibiyaan markaa waan gartay safarkiinaas isku dar dhammaan imise qof wada kaxeeyo safarkaas markii adiga dhowr cisho meesha nagula hayay oo waxaan haysana nagala qaatay ayaa 3 gaari oo kale oo yaryar dadkoodii meesha nagula keenay meesha markii nagula keenay 2 loori ayaa nagula soo qaaday oo nagula soo rogay intii meesha hore u joogtay intii gadaal laga keenay markii 2 loori nagula soo gidiyay waxaana la keenay meel yiraahdo kala wareega ama yacni baabuurta Liibiyaanka iyo baabuurta Suudaaniska ay ku kala wareegaan meeshaas markii la keenay kadib waxaa dhacday in niman markaas Suudaanis ah iyo niman Liibiyaan ay noo heshiiyaan ayadoo noola diyaariyay gawaari waaweyn oo leeyihiin Liibiyaan anagana aan filayno gawaari yaryar sida noogula sheekeeyay saas darteed maysan dhicin ilaa markiis waxay noqotay nimankii Suudaaniska oo markaas haddana lagu wareejinaa nimankii Liibiyaanka inayna yiraahdeen nin kasta lacag $100 inuu iska keeno yacni gaari yar alayna saaraa oo Cabdibile meesha aan ka filinayno oo lacagta iska gurbinay intii dad markaas heli karay ayaa waxaan la qaatay wax alaalo wixii markaas aan heli karno sadahay oo lacag ahay xilligaasna wax aan haysano haba yaraatee ma lahan oo saadkii aan haysanay waxaan ku soo dhameynay intii 5 maalin la soo haystay ayada caqabadaas ay horan noo haysatay haddana nagula sii qayaanay waxaan wali yiri waxaa la saaraa gaari yar oo Cabdibile ah intii markaas lacag haysato lacagtii aan nagala gurbistay waxay noqotay in 4 Cabdibile rarkoodii oo badan oo gaarayaan dadkii adiga cadadkooda 205 qofood miya ama 206 qofood meelahaas in hal loori nagula soo rogo oo ul nagula saaro intaan diidi maadnay ul in nagula saaray noqotay dhibaatadii ugu xumeed meeshaasaan kala kulmay waan gartay xasan aad iyo aad u mahadsan tahay runtii sida aad sheegtay dadkii tiradu waxa ay gaaraysay ku dhawaad ilaa iyo 200 in ka badan intaasoo idilma waxaad ahayd Soomaali kaliya mise waxaa jiray ajnabi dalal kale ah oo idin la socday intaasoo dad Soomaali kale ma aysan ahaynin waxaana ula jira ajaanib kale sida Eritreanka oo kale oo 70 ruux ku dhawaad ahay Suudaaniis oo kale oo 30 ruux oo kale ku dhawaad ahay waxaa kaloo nagula jiray Bangladesh oo adiga 2 ruux ma 3 ruux meelahaas ah marka intaasaan ahayn waan gartay waddada mashruuciisa ayaa ku jirteen intii safarkiina aad ku jirteen imse qofooda idinka geeriyeen wallaahi horta runta inta aan xusuusto aniga ra'yahantayda muddo badan ayaan moogahay xusuustina way ogaaday laakiinse markii ugu horreeyay oo baabuurkaas way nagula rogay horta galabtii ugu horreysay waxaa naga dhimatay 3 qofood oo Soomaaliya waan gartay 3 qofood waxay ahayn wiilal mise gabdho wiilal haye kadib safarkii waa uu sii safarkeena waa sii wadanay kadib haddana waxaa dhintay yar kaloo gacmi la dhahayo iyo yar kaloo asagana Ilaah u naxariistay la yiraahdo magaciisa hadda ma sheegi karo laakiin gacmi aan ka xasuustaa iyo yarkaas labadaas dhintay galabtaas iyo yar kale laakiin ma sheegi karo la ismu dhaqaanin meesha waan gartay markii ay geeriyoodeen 3 qofood oo idin la socdeen ma meesha ku aasteen mise midkood waa qaateen maya meesha ugu sokaysa hadday gaariga 12 saac u istaagi jiray xilligaas 12 saac gaariga istaagi xilligaas anaga naqaanayno xilligaas qofkaba aasi karin ma nafsiyaan markaan kaga hadlo nafsadeyda oo meesha aan ku dhacaamay iga soo kicin jiray balse waxaa aasayay dadka nala socday iyo dadkii markaas tabarta lahaay oo markaas xoogaa
allergiga u joogay haye markii ay geeriyoodeen saddexdaasi qofood oo idinku helinay safarkiina dareenkaaga sidoo noqday maxaa si kugu dhashaaday wallahi run ahaantii dareenkayga wuu isbedelay dareenkayga aad u weyn wuu isbedelay xaaladana inay xun tahay waan dareemay balse haddana ma ka niyad jibin oo yacni ilaah intaa la saartay alxamdulilah safarkeenna ilaah waa inoo fududeeyey intii naga soo hartay saddexdaa qofood markay geeriyootay kadib oo safarkiina aad sii wadateen ma dad kale idinka sii geeriyooday mise saddexdaa keliya ahaayeen dadka dhintay adiga weeraan tira marka cadadaan la isku wada daro dadka adiga waxay gaaraan 6 qofood meelahaasay gaaraan kadib haddana waxaa naga geeriyooday yar kale waa asagana xilligii markaas dhibi inaan heli rabnay naga geeriyooday ayaa jira asagana oo doonaha asagana cabdullaahi inuu dhahay magaciisa aan jeclahay adiga xasan dhalinyarada qaar waxay sheegaan galitaanka dalka Liibiya inaysan ahayn mid sahlaneyn oo runtii ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan ama xarig ama jabdal ama dadka qaarkood in lagu sii daayo lacag madax furasho markii aad gudbayseen xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya oo gudaha u galaysay dalka Liibiya sidoo ahaa safarkaas wallahi safarkii ugu yaabka badnaa waxay habeenkii xadka Liibiya la galshay horta habeen maqribeed waxaana nala wareegay rag mukhalasiin oo markaas dadka madax furasho ka qaato meeshii waxay noo keeneen rooti iyo cabitaan yar waa habeenkii ugu yaabka badnaa waxaan afkay galay aan la qawaay habeenkii saas darteed xaafadoodina geeyeen xaafadooda markayna geeyeen gurigayna geeyeen guriga beer ku taalo timir iyo adduunki yaalayna geeyeen guriga markaas oo soo roonaanay ayay telefono noo keeneen waxay nagu yireen eheladiina la xiriira oo nin kasta waxaan ka rabnaa lacag intaas madax furasho 350 ahayd iyo 10 oo yacni markaas lacagta rasiidka lagu shubaayo ama kaarka lagu shubaayo ah telefoonka ayay naga qaatay waan gartay kadib waxaad bilowdeen inaad bilowdaan inaad la xiriirtaan familkiina si ay idinku soo diraan lacag marka lacagta qaabicay ka idin soo marsiinayaan lacagta waa tii ugu yaabka badneed oo xitaa waalidkii iyo yacni annaga aan isku aamin weynay ayay ahayd lacagta waxaa lagu soo dirayay nin Suudaanis ah oo waxaa joogo Suudaan Khartoum ayaga dhahayeen yacni shirkadaas noola soo dhigo shirkadda markii loo soo dhigo ninka Suudaaniska magaciisa uu soo qoraa soo diraha magaca markaas oo qofka soo diraya lacagtana waxa laga dhigaa shakhsiga markaas meesha joogo ama adiga nafsad ahaan meesha joogtid ayaa lagu soo qoraa wax waalid isku soo qorayaan lacagta saas darteed wax tiin ugu yaabka badneed oo aragna taas ka mid lacagta la soo marsiinay dalka Suudaan sidee ay u xiriirayeen familkiina iyo dadkan Suudaan ay ku sugan Khartoum familka ay dadka Khartoum wax shaqo la weerarta isku malahan ninka meesha ugu haysto iyo ninka Khartoum joog ayaa xiriir laayeen lacagta Liibiya gudaheeda looma soo dhigay waxaa loo soo dhigaa Khartoum waxaana lagu soo qoraa nin Suudaanis ah magacaas soo dirahana waxaa laga dhigayaa magacaada oo adiga shakhsiyan meesha joogtid meesha ugu xareysan marka aan ka dhaxgal xasan ilaa hadda waxaan fahmi lahaa marka lacagta loo soo diro qofka jooga Suudaan sidee ay ula soo xiriirayaan ehelkaaga ama telefoonka sidee loo helayaa qofka lacagta qaadana ehelka waxba lama soo xiriirayaan ninka mukhallaska ah ayaa soo wacayo ninka kale oo Khartoum joogo markuu soo wacayo wuxuu ku leeyahay lacagtaas wuxuu soo qoray ma taala shirkadda oo ninka lagu soo diraayo ayaaba meesha shirkadda u fadhiyo lacagtaas way ii taala oo way soo gaartay oo leeyahay oo hebel ku qoran yahay saas darteed marka asaga magaciisa ka qoranaya lacagta qof allaala waxa la soo wacaya caawidii oo kale la soo wacaya waxa la hayaa inta soo dada lacagtoodan ku haya magacyadooda weydii magacyada laga saxaya habeenkaas markaas sii wadanaysa lagu qaadi marka markii idin sii daayaan ama lacagta ay helaan oo idin yiraahdaan fasax ayaateen ma tihiin dad kale yaqaan oo dalkii waxa tii dadku cusub wadankii sidee ayaad ugu sii gudubteen halkaasi
horta baabuur kale lagu qaadaya ayakana ku qaadayaan waxayna kugu wareejinayaan rag kale markaas ayakana isla shaqeystaan oo muqallasiin kale kidib haddana raggii kale lagu geeyo asagana lacag kale oo kaasii dalbanaya sidii ninkan uu dalbado kale asagana wuxuu kugu oranayaa yacni lacagtaas intaas u baahanahay telefoonkan oo koodal lacagtaas ii dalab waan gartay markii aad dhibaatadan aad kasoo badbaadeen oo reerkii lacag ay idin soo direen oo halkaas nagala sii daama waxaad lasii kulanteen qolooyin la mid ah qolooyinkii hadda idin sii daaya kale qolooyinkaasoo inta badan qolooyinkaasoo kaleba kugu wareejinayaanba markii ku wareejinayaanba waa dhif iyo qaliil ayagoo yacni meeshaad kula soo heshiisa ku geeyaan waa niman khiyaano badan marka safarkiini siduu ah idinka ma waxaad la kulanteen qolooyinkan tuugada lagu wareejinayay mise waxaad la kulanteen dad wanaagsan oo safarkiini si toosan idin sii hayay wallaahi horta waan la kulannay qolo kale nagu sii wareejiyeen laakiin qoladii kale wax saa samayna meesha naga sii qaadan lacag yar bay naga qaateen ayakana waxay nagu sii wareejiyeen caasimad kale nagu daadiyeen oo Banqaashi la yiraahdo weligeeda laga gelaayo afaafka laga gelaayo saasa magaalada ku galnay habeenka waan gartay markii aad tagteen magaalada Banqaashi ee dalkaasi Liibiya maxaad kala kulanteen yaa halkaas idinku soo dhaweeyay waxyaabaha kuugu yaabka badnaa ayaad kala kulantay Banqaashi maxay ahayd والله يرد بقاسي واحد باتاع كلام كلمين وعنا نقص دوية رد مركز مستقبل ما يشوف لي ولا يرجع مقعد موضع عصوسته لكن ولا هذا وحكم عصوسته بس يرجع سان وصل دوين ما يشان كعصوسته ما بقاس وصل دوين أو كلام الدنيا وحي كده بين العقد ما يشان وصل حوالي واحد باتاع كلام dadka dhalinyarada qaar ee maray dalkaas Liibiya waxa ay sheegaan in dalka Liibiya dadka shacabka oo dhashay inay yihiin dad muslimiin ah oo dhibaatooyin far badan ay u geystaan dadka muhaajiriinta waxa kaloo jira dad badan oo lagu dhex dilay suuqyada ku yaala dalkaas Liibiya adiga intii aad ku sugnayd gudaha dalka Liibiya waxyaabaha la sheegay ma la kulantay wallahi horta ilaahay nimcadiis intaas oo dhibaato ah oo aan maray lama kulmin wax dhibaato oo saas u sii weyn oo ama suuqa aan kala kulmay ama wax jirdil ay geest balse yani dadkaas waxay qabeen aan la qabay oo dadkaas isku meel joogay marka dad badan tiina kulay wax badan la kulmaysiin marna dhibaato la kulmaysiin marna alxamdulillah waa badbaadaysiin balse markan gudaha u galay alxamdulillah wax dhibaato ay abeeraatay lama kulmin aniga waa gartay markii aad gudaha u galaysay dalka Liibiya sanadkaay waxaan galay 2008 bishii sagaalaad dhexdeedii ayadoon soo qaad 6 oo marayaan waan gartay kadib waxaad bilowday safarkaaga ku aadanaa inaad dhex joogdo badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalka Malta iyo Italy iyo dalkaasi Liibiya safarkii kugu horeeyay ee aad gashay badda ee ku aadanaa tegitaanka qaaradda Yurub sidoo ahaa maxaa kala kulantay والله يورد سفر كاس وسفر كيا سجن مركز وسكدب لهاي بس وحلا شيء هذا ملها وعوها سجنها بيش سجالات دواتني تدرد دي أيام سفري اللي جالس أيام بدأ فلنا بدأ مركز فلنا يعني دونتي على صعوني أيام الله ودي صدرت رجي نوودي أحمد الليران نوودي اللي جالس أحمد فنح سنجع على مد عيسى ونقود نوعه dadkii wada cabaaday way wada qalqaleen doontii oo markaas naga alawday dib aan loo soo celiyay dib markaan noo soo celiyay xabtayna keeda doontii xabti markayna keentay niman masaariyo nala saarnaa xitaa doontii way gubeen waxana qadartiis ay uga naqon waayeen wadanka Liibiya oo naceen marka alxamdulillah maalintaas wax xabsi amaana gelin gobolka ugu xun ay nagala soo xirtay doonta oo marka horena uu nagu la xareeyay magaaladii aan soo dhaxmarnay gobol Sheraton la yiraahdo alxamdulillah wax dhibaataan ku markin caasimadan soo laabanay marxaba waan gartay markii aad ku soo laabateen caasimada adigoo soo arkay dhibaatada ay leedahay tahriibka ama dhibaatada ay leedahay badda oo la raacay doon aad u yar dadkina tiradooda aad ugu badan yihiin maxaa kugu dhashay kadib in safarkaaga ay toosmay kugu dhaltay mise inaad mar kale try gareyso aad safarka ku noqoto wallahi horta kale waa maasan tahay
tan kaliya waa niyadeeda soo gelin waxay ahayd inaan safarkayga aan joojin oo safarkayga sidii aan ku sii aan qaadi lahay oo aan ku heli lahay noloshaan nolol ka duwan ayuu baahaybo saas darteed ma joojin safarkayga oo marka la ay noqotay in ay leedahay inta la xiriiro aan waalidkayga aan wax ka dalbado lacag kale oo dalbada haddana ay noqoto markaas inaan doon ku sii shubto doon lacag shubto waan gartay haddana waxaad taraagaraysay ama aad isku dayday safar kale inaad marto oo ah badda safar kale oo badda inaan maraa isku dayay saas darteed safarkii kale oo badda waan shubtay waana galay baddii mar allaala markaan galay ayadana doontii markaan 7 saacadood badda kusii jirnay doontii kale ayadana halawday ayadoo alaysan ayaa waxaan la kulanay markab Liibiyaan xilligaas aan markab Liibiyaanka la kulanay xillig galab ay ahayd markabkii Liibiyaanka ay markuu gacanta nagu dhigay asagana soo hagay dhanka Liibiya noo soo hagay oo nagu soo celshay anagu soo hagamo xamo wuxuu noo sii diyaariyay markaas ciidankiina qabanay ama shurdadii markaas u shaqeynaysay dawladda saas darteed badda saan markaa ugu soo deganay meeshii geedageeday lahayd waa lagu kala yaacay alxamdulilah xilli dambe 9 saac habeenimo ayadoo la joogo ayaan isleeyahay xilligaan markaa sangeed ugu dhex jiray oo isku dhammaatay askartii oo waa la kala weyday aniga isleeyahay ayaan banaanka u soo baxay dhanka laamiga markaan u soo baxay xilligan baabuurkii shurdada iska fiirinaya inta iska fiirinaya waxaa lagu qabta oo baabuur oo markaas caadiyad lagu adeegto oo markaas looga soo qaado beerta qudaarta waa la qabtay isla markaas waxaan galay xabsigaan galay waxaan ku jiray muddo markaas dhan adiga 4 bilood iyo 27 casho afarta bilood yani raahday iyo 22 casho ku jirtay xabsiga maxkamadda kugu xukuntay mise adigoo bilaa maxkamadda lagu hay xabsiyada Liibiya wax maxkamadda kama jiraan mana lagu xukumo haday jiraan waa xabsiyo markaas muwaadiniinta lagu xukumayo oo qof oo ajnabi ah wax maxkamadda ma xukumayso inta badan haddii la xukumo xabsiyada xukunka waa laga bixi karaa wax weyn maaha tan laakiin waa mid oo lacag lagu gato dadka waan gartay waxaad ka wartaa gudaha xabsiga sidoo ahaa qolkii imse qofoodaad ku xirneedeen xagga cunada samxeedii siin jireen wallahi cunadeeda waa iska dhib badneed waxa ugu xun xabsiyada cunada laga cuno inkastoo xabsigaas aan ku jiray muddadaas aan ku jiray alxamdulilah yani aan markaas waxba aysan iga alaabin TV-na oo lahay telefoon oo lahay xabsiyada qaar oo karoonayo waan gartay markii aad dhamaystay muddada xariga ahayd oo aad xabsiga ka soo baxday oo aad dib ugu soo noqotay magaalada oo xorriyadda dib aad u heshay maxaa go'aansatay waxaan go'aansaday in safarkayga aan ku sii wadan lahay mar labaad mar saddexaad aadan dib u sii wato saas darteed imaysan suurta gelin safarkayga waan qaabsaday waana diyaarsaday mar allaala markii aan damacnay safarka ugu dambeeyay 7 bilood ayaan magaalada joogay caasimadda 7daas markaan joogay isla bishii 8 markaan damcayna safarka galo safarka ayaan isku diyaariyay lacagtii ma shubanay xilligaas doon baa noola xareeyay doonta markii noola xareeyay muddo adiga 3 maalmood xareysnayna badda nala saari maagay markii nala saari maagay suurtagal weysay oo waa ciidan aan oo galay badda xirta doontii markaan yani in la saaro la damacsanay hadii habeenkaas geedaan ku yeelnay waa la kala cararay wixii la qaban karana waa la qabtay qoladii fakataan soo galay markii habeenka oo mar saddexaad ayaad ka badbaaday inaad xabsi gasho markii aad ka soo baxsatay kadib safarkaaga sidoo ahaa waan ka soo baxsaday magaalada markay imaadeen raggii maqalisiinta waxay yiraahdeen lacag la celin maayo doonka la diyaarsan diyaar noqdo safar diyaar u noqda
hal isbuuc markaa meeshii joogna haddana waxay noqotay in markaas safar kale aan kusii noqono safar kale markaan diyaar kusii noqonnay mar allaano markii aan damacna haddana badda in nala saaro ayaa askarna qabatay askartii markay yaqaana qabatay xabsi la yidhaha kaaraambuli aan ugula xiray saas darteed muddo aad isbuucaan ugu lahay xabsigaas lacag baan rabnay inta badan inaan uga baxno maana noola daasan xabsiga xabsi kaloo xunaa noola xawiilay xabsigaas markii noola xawiilay xabsigaas yacni waa xabsiga ugu xumaay oo soo maro noloshayda in badan oo Soomaaliyana kulli aan isku xirnaynay rag badan oo reer Muqdisho iyo reer Somaliland ah oo aanan hilmaami karin saas darteed xabsigaas waxaan ku jiray muddo 10 bilood ah waan gartay 10 bilood runtii waa waqti fog intii aad xabsiga gudaha ku jirtay ma jireen dad dhalinyaro ah ama intii kugu gruubkeed oo ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa rag badan ku geeriyooday waxaan ka aqoonay yar la yiraahdo qalin leh oo xilli horena doonaan isla raacnay xilli dambena aan xabsiga isku aragnay waxaa kaloo kamid ah xabsiga iska dhib badnaay waa xabsiga ugu yaabka badnaay oo $100 xataa habad kaliya aad gaartay xitaa aan lagu soo gadayno afka lagu dhifanayo waan gartay dadkaas ma waxay u dhinteen ama ay u geeriyoodeen caafimaad la'aan ama cunno la'aan maxay u dhinteen dadkaas waxay u geeriyoodeen caafimaad darro iyo cunno la'aan intuba way isugu jireen labaduba waana muusan lahayn caafimaadna muusan lahayn xabsiga waan gartay markii aad muddada 10 bilood aad ku jirtay ma lacagaad ku soo baxday mise dawladda iska soo geysay lacag kuma soo bixin dawladda ay faajno soo fiisay markii dambe هذا ترى حتى العجان كبحة وبالوجود لا خلاص هذا دوينيسا waan gartay runtii xasna waxa tahay qof runtii safar dheer soo galay oo aadna ugu soo jabay kadib markii aad ka soo baxday xabsigii oo aad banaanka u soo baxday maxaa kugu dhashay maxaa fikir ah oo runtii xabsigan waxa uu ka daran yahay xabsiyada kale aad hore u soo martay runtii waa waqti dheer sanadkii waxa ka haray muddo 2 bilood kadib maxaa kugu dhashay markii aad banaanka ugu soo baxday xabsiga والله وعن فيلم ويورتا قلبتي حبسي كسو بحاي ومقعيق اللي يشي وانا من واي ساسدرت انغو انتا برنامج اللي يسو ساري اللي يدهاي انت كبح غاري راع تا يا الا هدا انا من الله وان لا يابناي انك سو سفر بدن سو غلay واي مو فيلن ان بين حبسيات يعني دغدغ aan uga baxayo dibaatada ana kala kulanay dibaatadii ugu xumeed waxay ahayd xabsigaas jibdin noola geystay oo si xun noola dili jiray maalintii uu noogu yaabanayd annagoo 40 qofood gaarayno oo dukanayno ayaa waxaa noo soo galeen askartii markaas waardiyeynaysa xabsiga darteed maalintaas waxaana dushinayay yar la yiraahdo Axmed Quslaaye galab casriyeed salaadii inta lagu jiro jamaacada وانا من كي سوق وين حتى إلا أن جماعة كفارقنا أما أن كبقنا نينكي إمام كي هاي عم غسل هاي سان إنتان لوسا قبطان وغلوسا كالاتوري تحدينا الوسو الربي أنا كنا برتي وأول نوغلب لابو يبود إذن كو صلاة دي وتايغا أنا كو صلاة دي وتايغا هذا نمكاس وانا من كي ووح ما مركز أنا waan gartay runtii waa wax la yaabo waxaan ku tilmaamaa in garan waayo waan gartay kadib markii aad banaanka soo baxday oo ay maxkamadda cafis ku soo fadisay dawladda maxaa go'aansatay qorshahaaga muxuu noqday maxkamadda waxay nasiisay yani sharciyo yar yar oo markaas 3 bilood aan ku joogi karno ama aan uga baxayno qofka sana shakhsiyan kulay waalid uu leeyahay iyo walaal iyo wax la dhashay saas darteed waxaan go'aansaday yani waalidkii aan laaday waalidkii markaan laaday waxay ugu yiraahdeen isaga soo laabo meesha muddo badan ayaa hadalkaada weynay meeshana calafkaada meesha noqon inaan ka baxdo dhibaatadaas awgeed ayaan uga laabtay oo soo laabtay waan gartay runtii adigoo og soo laabashada xataa inay tahay safar geeri iyo nolol u dhaxaysa oo runtii aad soo marayso wadadii markii hore aad martay oo aad ogtahay ama aad ka mid ahay raggii aasay dad asxaabtaada ah oo kula socday safarkaasi sidoo ahaa maxaa kala kulantay wallahi safarkii ugu dambeeyay ayaa ii dheeraaybo markaan soo baxay safarka meeshii hore aan marayna soo marin hadda wadamo kala soo maray sida
waddanka la yidhaaho Niger iyo Chad oo dhankaan Darfur ka soo galay magaalada Khartoum. safarkaasi marka aad soo noqonaysay dhulkaad ku soo noqotay dhulkaan ku soo noqday ma dad kale Soomaaliyeed kula socdeen ama ajnabi kale mise kaliya safarka kugu weeday wallahi wiil badan toddoba wiil ugu yaraan toddoba wiil aan ahaynay Daar Mukhtaar Cali Iraan ka xasuustaa ya rag dictatorka nin la yiraaho rag badan aan ahaynay xilligaas oo iska soo laabanay kana waddanka Jaad laakiin ku kala harnay waan gartay intii safarkaaga ku aadnaa soo noqoshada magaalada Kampala mala kulantay wax arag kala ah ama jirgin lagu geystay wax badan ayaan la soo kulmay waddanka Jaad waxaan kala soo kulmay in yani lacagtii meel ugu saxwilo la waayo oo waddanka aan ku xayirnaado biliya bar waxa kale oo haddana dhibaato badan kala soo kulmay markii aan Khartoum ka soo baxay oo dhankaan South Sudan aan soo galay oo ayadana igu noqotay inaan gobolada dhexe aan u imaado waddanka dhexdiisa goboladan oo South Sudan sida Awil meel yiraaho wala qabtay ani yar kale oo Khartoum iska soo baxnay meeshii la igu xiro telefoonada noogala qaato lacag noogala qaato كده بعدين دبنا وقولوا عليه أنا كواحد هيسنين وميلا عندنا كل حريرنا تلفون أنا هيسن وإحنا هيسنين نمبرنا هيسنين وكنا قنادنا خرطوم مرة لبان مدين تلاقي كوحنا تقول كاس حبيني مالنا كوحرناي كدب واحد دب وقولنا قلت مقالة بخرطوم كده بخرطوم أنا وقول عرش هاي سفر كينان إن كوادن إما شاه كمبالا أورنتي أتكلم كنتي دواتوين فربضن محد كفكرتي inaad si joogto magaalada Khartoum ku fikirtay ama waxa ka goonaad kaliya inaad soo gaarto magaalada Kampala marnaba kuma fikirin in Khartoum si joogo waayo hadafkayga safarka ayaa ahayd Kampala inaan imaado saas darteed ayaan uga hakan waayay meeshaas kadib maxaad kaga soo baxday Khartoum kadib Khartoum wadadii aan markii hore isticmaalay maan wada kala soo isticmaalay oo Malakan mid la yiraahdo oo badda doon la soo raacayo doontii aadana soo raacay adiga saddex maalin soo waday Jubba ka soo degnay meel bor la u dhaw Jubba bor meel yaraw Jubba ka soo degnay saas ayaan ku imaaday kadib Jubba markaa soo gaarteen magaalada Kampala maxaad ku soo gashay Jubba markaa soo gaaray sharciga markaas meesha ka shaqeynayay oo soo Suudaan ay isticmaalayeen ayaan jaranay saas ayaan ku soo galay Kampala waan gartay runtii Xasan waxa tahay qof way arag ah oo runtii safar badan soo galay dhibaatooyin far badan soo kulmay xabsiyo badan soo arkay dad runtii ku geeriyoonay saxara la maray soo arkay maanta waxa jirta dhalinyaro far badan oo ku haminaysa in ay u tahriibaan dalka Liibiya iyadoo maanta xaaladda Liibiya ay ka sii daran tahay sidii hore waxaad kula dardaarmi lahayd dhalinyaradaas walaa horta meesha adiga hadii kugu adag tahay ragna way u fudud tahay meesha ay ku fududna rag ay ku adag tahay wax walba calaf waay calafana la cunaa saas darteed horta waddankaas anigoo markaas asagoo amni iyo kala dambeyn leh saas looga dhaqmay maadala hadda wallahi waxaan ka sheegay iyo waxaan ku aanay cidna ma garanayo balse waxaan ka jeclahay inay soo dhawaato markaas aad ilaahay saacadan ayuu si xasido daawadayaal waxaan soo gaarnay runtii gabadhii barnaamijka socdaalka guriga oo toddobaadkan si toos ah kaga imaanay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah Xasano waxaa idin soo siinayay waa Cabdifataah Xuseen Guri xagga sawir qaadista waa saaxiibkayga xarid intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida aynu wadgeli wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها
حتى تضيء بشمسها أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا، ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا. كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب، ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا. أزف الفراق وظلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.